su-aasha afraad waa su-aal qoraalkeedu dheer yahay wuxuu leeyahy saailka soo qoray waxaan joogaa waddanka jarmalka dalkan buu ihi marka qofku sharciga qaadanayo sharciga dhalashada wuxuu ku qasban yahay inuu saxeexo waraaqo ay ku qoran tahay inuusan ahayn muslin mayal adag, inuusan aaminsanayn in diinta islaamka oo keliya sax tahay, inuusan aaminsanayn in kiristaanka iyo yuhuuddu gaalo yihiin, inuusan aaminsanayn in dastuurka waddanku ama inuu aaminsan yahay in dastuurka waddanku ka sarreeyo shareecada islaamka. wuxuu uhi markaa maxay shareecada islaamku ka qabtaa qofka warqadda ama waraaqaha saxeexa isaga oo aan aaminsanayn in waxa ku qorani ay yihiin markaasi wax saxa, laakiinse dantuuni ay ku kalifayso oo uu doonayo jinsiyadda waddanka inuu qaato. su-aashan u dambaysay waa iska gaalnimo markaynu soo ururino nin baa baasaboor ku qaadanaya waan gaaloobay in weeye natiijadeeda waxaa badana la akhriyey. markaa shayga gaalnimada la yidhaahdo haddaad maslaxad ku doonayso iyo hadday dhabkaa tahay iyo hadday dheeldheelkaa tahay intaba waa loo gaaloobaa. kii yidhi waan kaftamaya munaafiq ahaa ayaa ilaahay u jawaabo wuxuu uhi qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. weligiiba sheega inaad kaftamayseeno kol haddii ilaahay iyo aayadihiisi iyo rasuulkiisii ku dheeldheesheen waa gaalowdeen baa ilahay uhi idinkoo aa shahaadanaya kadib. markaa qofku wax u dhaafsan kara diintiisa ma jiro. mar quraa sharcigu saamaxayo waa marka la qasbee xabad laysla dul taago ee la yidhaha qasab ku gaalow, taasina iimaankii qalbigu ku haystaa wixii ficil iyo qowl uu sameeyo loo qaban maayo. iminkana waxaad sheegtay cidiba kuma qasbine adigaa dollar iyo danaaniir iyo jawaas iyo baasaboor baad raadinaysaa. markaa qofku waa inuu ilaahay uga toobad keenaa, gaalnimadana deg deg uga hadhaayo uu ka baxaa maslaxadda uu ku raadinayo. wallahu aclam.